afhayeenka ururka al-shabaab Sheekh Cali Dheere oo dhawaan ciidanka xoogga dalka ay sheegeen in lagu dilay dagaalada gobolka Hiiraan ayaa soo hadlay taasi oo meesha ka saartay sheegashadii dawladda. Cali Dheere ayaa cod laga baahiyay warbaahinta al-shabaab waxa uu kaga hadlay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanada Yaasoomaan iyo Beera Yaabaal ee duleedka degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan. Codka ay xalay baahisay al-shabaab ayuu Cali Dheere ku sheegayaa in taariikhdu tahay 12 bisha Oktoobar 2022 taasi oo u muuqata mid looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo inaan ahayn cod horay loo duubay. Afhayeenka al-shabaab ayaa sheegay in dagaalkii shalay ay ku dileen 117 askari oo ka mid ah ciidamada dawladda, inkastoo sheegashadaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin karin iyada oo dawladda ay horay u sheegtay in khasaare culus dagaalkaas lagu gaarsiiyey ururka al-shabaab. Raadiyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee SNA Radio ayaa 6 Oktoobar sheegay in afhayeenka kooxda al-shabaab Cali Dheere uu dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal dhexmaray iyaga iyo ururka al-shabaab. Qoraal la soo dhigay bogga Facebooka ee raadiyaha ayaa lagu yiri xog muhiim ah oo warbaahinta codka ciidamada SNA Radio ay ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaysa in afhayeenka argagixisada al-shabaab dhagarqabe Cali Dheere axadii la soo dhaafay 4 iyo badhkii galabnimo uu ku geeriyooday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qoraalka ayaa intaas ku daray in Cali Dheere uu isbitaal la jiifay dhaawac culus oo ka soo gaaray dagaal ciidanka xoogga iyo shacabka xoreynta Hiiraan ay al-shabaab kula galeen deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan Khamiistii la soo dhaafay ee 29 bishii Diseembar ee 2022.